بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسل وهذا مركليه ورئيس الله يلي أقسمها واحد حرير كدبدة يهدها عالمية هي مامل قبل كبنادر مدن محمد حسن محمد حسن وحصمري مقالين بدنا كمد عالمك وحكمد هلسنكي وحكمد الدوحة وحكمد نيروبي وحكمد تركي أما اسطنبول وحكمد كونيا سؤال شو قولي ودي وحي هيد بلون الله شرحه وحيابها الله يدمدي واحدة أم مدحدة كي هي أو كم تلو مامل قبل كبنادر وما تنتهي أقسمي إلا waxaa waaxda xiriirka dibadda iyo hay'adaha caalamiga loo idmaday inay maamulka dawladda hoose ee Muqdisho kala shaqeyso mantaaneynta iyo bilowga xiriirada ugubka ah ee magaalooyinka kale ee Muqdisho dhigeeda ah ee guud ahaan caalamka daafihiisa kala duwan haddii loo arko magaaladaas inaan iska kaashan karno meelo Muqdisho ay culayse ka haystaan wax badanna looga faa'iidi karo tusaale haddii loo arko tababarada shaqaalaha iyo maxay ahaydey meelo gaar ah inay ku wanaagsan yihiin magaalooyinka qaar waxaa dhacda inaan xiriiro la bilowno si aan isaga kaashano meelahaas mucayinka ah waaxda waxay kaloo bandhigtaa baahiyaha muhiimka ah iyo mudnaanaha maamulka gobolka Banaadir inay u gudbiso hay'adaha caalamiga ah iyo dawladaha hoose ee aan iska kaashan karno meelaha qaar haddii ay noqoto maxay ahaydey infrastructure-ka haddii ay noqon lahayd tababarada shaqaalaha haddii ay noqon lahayd digital mapping-kii iyo eriyooyin kaleete oo mucayin ah marka waaxda howlahaas ayay ka taageertaa maamulka dawladda hoose ee Muqdisho maxaad amaasan tahay howlihii ugu dambeeyay ee aad qabateen ama waaxda ay qabatay balna fafaahay wixii ugu dambeeyay oo waaxda ay qabato waxay ahayd 17ka bishan May waxa kulan ay qaban qaabisay waaxda ay isku arkay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga mudane yabo iyo gobernatoraha magaalada Nairobi Sakaja kulankaas ayay ahayd hawshii ugu dambeysay oo waaxda arrimaha dibadda ay qaban qaabisay kulankaas oo ku soo dhamaaday miradhal la iskuna afgartay in gobernatoraha magaalada Nairobi uu booqasho ku yimaado ama lagu casuumo magaalada Muqdisho sidoo kaleete duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadirna casuumad loogu fidiyo magaalada Nairobi si loo dardargeliyo xiriirkaasi bilowga ah iyo is-aragii ugu horeeyay la isku afgartay in labada magaalo uu dhex maro iskaashi dhinacyada horumarinta ah iyo infrastructure-ka ku saabsan maxaa ka hirgalay mudane waxyaabaas aad soo sheegtay oo lagu faani karo waxyaabay ugu dambeeyay ee ka hirgalay heshiiskii Konyo kale hal iyo labo Muqdisho waxaa lagu guuleystay inay mataano la noqoto magaalada Konya ee ku taala dalka Turkiga Konya waa magaalada dhul ahaan ugu baaxadda weyn ee dalka Turkiga waa magaalo 90% dadkeedu ay yihiin dad maxay ahaydey aaminsan diinta islaamka ah magaalo uu ka soo jeedo maxay ahaydey wadaad aad iyo aad looga ixtiraamo diinta islaamka oo la yiraahdo Maulana Jalaaluddin Rumi magaaladaas ayaan la mataanownay sanadka markuu ahaa 2022kii 26ka bishii May ayaan mataano la noqonay waxaana lagu heshiiyey heshiis 9 qodob ka kooban qodobadaas oo ay kamid ahaayeen
dhinaca bulaacadaha waxaa ka mid ahaa maareynta qashinka iyo qashinkii in la warshadeeyo, waxaa ka mid ahaa civic registrationka, waxaa kaloo ka mid ahaa tababarada shaqaalaha in labada magaalo ay iska kaashadaan. waxaa kaloo Muqdisho iyadana afgarad heshiis ku saleysan ay wada galeen magaalada Dooxa sanadii 2019. waxaa kaloo afgarad u dhexmaray Muqdisho iyo magaalada Istanbul 2016. howlahaas oo dhanna waxaa ka shaqeynayay oo facilitate gareynayay waaxda xiriirka dibadda. ilaa hadda marka waxyaabo la taaban karo oo heshiisyadaas ka fulay anoo sheegtay heshiisyadaasi waxaa ka fulay heshiiskii magaalada Konya iyo Muqdisho ay wada galeen oo mantaaneynta ahaa. qodobkii ugu horeeyay oo ahaa tababarada magaalada Konya waxay noo soo direen ilaa iyo 6-7 ruux oo macallimiin tababarayaal ah oo tababaray waaxda dabdamiska dowladda hoose ee Muqdisho ay ka soo degeen. waxay training ama tababar dhameystiran siiyeen shaqaalaha waaxda dabdamiska, gaar ahaan 60 ruux oo ka tirsan shaqaalaha waaxda. muddo 2 bil kadibna waxaan rajaynaynaa haddii uu Ilaahay ka raali noqdo 20 ka mid ah shaqaalahaas kuwa ugu imtixaankii la qaaday ugu buundo sareeyo in la geyn doono magaalada Konya, tababar dhameystiran muddo bil ah lagu soo siin doono. heshiiska markaa 9 qodob ku koobnaa mantaaneynta Konya qodob ka mid ah waa fulay, wuxuuna noqday mid guuleystay. dadka waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan heshiisyada maxaa loo galaa hadiiba uu noqonayo paper ama haddii uu iska noqonayo qoraal uusan ficil isku bedeli doonin. marka heshiiska Konya iyo Muqdisho ay wada galeen ma noqonin mid qoraal ah oo waraaqa ku ekaada. qodobkaasaana ka fulay. waxaan rajaynaynaa 8 qodob kale heshiiska ku xusan inay iyagana fuli doonaan. waaxdana waxay xaqiijin doontaa haddii uu Ilaahay yiraahdo 8daas qodob si dhameystiran inay u fulaan. mudane waa maxay qorshaha u degsan waaxda sanadaha soo aadan? waxaa qorshaha uu yahay in magaalooyin dhowr ah iyo Muqdisho xiriirkooda bilowdo la mataaneeyo. marka aan saas ku leeyahayna waxay tahay waxaa loo baahan yahay ama la sameeyaaba xulasho lagu kala xulanayo magaalada ugu habboon ugu mudan oo Muqdisho uu dhex mari karo xiriir iskaashi ama mataaneyn heshiis. waxaan ku xulanaa haddii ay jiraan similarities ama isku mid ahaansho dhinaca dhaqanka ah, haddii ay jiraan isku mid ahaansho colaado soo maray ama dagaalo sokeeye soo maray. cimilada waxay ka mid tahay qaababka iyo hanaanka aan ku xulano magaalada xiriirka lala bilaabayo ama lala mataanoobayo. hadda sida qorshaha yahay sanadkan waxaa qorshaheena yahay ugu yaraan 2 magaalo oo aan xulashadaas ku sameynay criteria-daasna maxay ahayd buuxiyay in Muqdisho ay iskaashadaan ama la mataaneeyo oo xiriir iskaashi uu dhex maro. waxaan rajaynayaa Nairobi inay noqoto mid ka mid ah magaalooyinkaas maadaama aan dhaqan wadaagno culayso badan oo maaragtay maxaa lahaa aan wadaagno daris aan nahay Soomaali badan oo maxay ahayd ilaa iyo 2 milyan ah ay ka ganacsadaan ku nool yihiin base u tahay. waxaan rajaynaynaa in iskaashigaas uu si dhow u bilaaban doono haddii uu Ilaahay. ugu dambeyntii
محمد waxaa soo martay magaalooyin badan sida Doha iyo Helsinki iyo Nairobi marna ma masayrtay markaad babar dhigto magaalada Muqdisho horta Muqdisho waa magaalo maxay hayday aad maxay hayday aanan u falxumayn inkastoo adeegyadii qaar culays uu ka jiro 30 sanadood oo iyo 20 sanadood oo dagaal ah ay Muqdisho soo martay dagaalkaas sokeeye marka saameyntii uu yeeshay raadkiisii mararka qaar uu sii muuqdaa haddana marka aan tago magaalo aad iyo aad u qurux badan adeegyadeeda dhameystiran yihiin culays badan uusan ka jirin dhameystirka iyo adeegii bulshada dabcan waa u maseereysaayo waxaad leedahay magaaladeedii caqabadaha noocaas ah maadaama intaba ay ka fushay adeeg dhameystiran haddana waa ka fuli kartaa Muqdisho haddana waxaa kugu soo dhacayo in Muqdisho meeshii ay shalay joogtay meeshii 5 sano ka hor ay joogtay meeshii 10 sano ka hor ay joogtay inaysan maanta joogin oo improvement fiican uu jiro adeegyadu ay hagaagsan yihiin marka loo barbar dhigo meeshii shalay aan joognay aqalkan dawladda hoose xafiiskan uu ku yaalo sida aad ka warhaysid 2011 ayay hirgashay marka meel xilligaas maxay ahaydey xaruntoodii dib loo soo hagaajiyay oo dib looga howl bilaabay haddana adeegyada noocaan ah laga bixinayo waxay ku tusinaysaa inay iyada naftarkeeda ay guul weyn ay tahay iyo maxay ahaydey wadadii wanaagsaneyd oo dawladda hoose ee Muqdisho maamulkeeda ay hayaan waana rajaynayaa haddii uu Ilaahay yiraahdo haddii nabadgelyada ay sii hagaagto maxay ahaydey in Muqdisho ay gaari karto magaalooyin badan oo Afrika kamid ah iyo kuwa badan oo dunida ku yaalo inay si xawaaro leh ay ku dhaafi kartaan aaminsanahay Thank you very much. waaga dhageystayaal daawadayaal intaasaan kusoo gabagabanayaa wareysi gaarka aan la yeeshay agaasimaha waaxda xiriirka dibadda iyada caalamiga ah ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Xasan Maxamed tan kulanti dambe nabadgelyo